Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada mar kale iyo YouTube-ka Faa'iidas Channel. Maanta waxaan inoo wadaa kaabash iyo baradho iyo basal iyo tamaandho iyo ukun. Intaasaan maanta isku samaysanaynaa haddii Ilaahay idinka ka dhigo. Laba xabo oo baradho ah weeye iyo xabad yaanya iyo xabad basala. Kaabashkan xoogaa baan ka goosanayaa. Halkaana labadii xabbe ee kunta ahaa ayaa iigu jira. Waxaa isna aan haystaan ku darsanayaa farmaajadaasaan ku darsanayaa xoqan. Aan hadhow ku darsan doonaa insha Allah. Marka maanta kaabashkan aynu samaysanaynaa daawasho wanaagsan. Kinaalka haddaad ku cusub tahay please subscribe ii noqo ha ka tegin. Like-ta ii saar meel dheer bay gaarsiinaysaa. Share dhaha asxaabta u gudbiya. Waxba idin yeeli mayso. Inta subscribe bayana waa ku mahadsan yihiin. Ku soo biir haddaydin subscribe ii ahayn. Waxyaabo badan oo faa'iido leh baan soo gelin doonaa insha Allah. Marka kinaalka like-ta iyo share-ta ha kala bakaylinina. Kinaalka meel dheer bay gaarsiinaysaa like-ta iyo share-tu. Asxaabta ha loo diro, asxaabta ha loo qaybiyo, subscribe ha laga dhigto, gambaleelka ha la furto. Insha Allah soo dhawaada. Waxay ismartiyeynina. Channel-ku waa channel-kiinii. Hadda waa kan kaabashkii baan googoostay. Sidaa yaryar baan u googoosanayaa kadibna waan karinayaa xoogaa cabaar hal cabaar aan karinayaa. Marka kaabashkan aan hadda isticmaalay waa mid jilicsan. Haddii kaabashkeennii caadiga ahaa isticmaalaysay ee Soomaaliya lagu isticmaali jiray kari ilaa intuu ka jilcayo kari kan haddeer aan anigu googoostay karin badan ma doonayo. Wax yar buu karsamaya ilaa 5 daqiiqo ka badan ma karinayo. Laakiin keennii caadiga haddaad isticmaalaysid kari intuu ka jilcayo kari. Baradhadana waxa weeye hadda labadii mil ee baradhada ahaa ayaan xoqanayaa. Inta kaabashku ii bislaanayo dabka ii saaran yahay ayaan sii diyaarsanayaa alaabta inta kale. Baradhadii baan xoqanayaa sidaad hadda aragtaanba. Insha Allah labada mil ee baradhada ayaan xoqan doonaa. Waxa weeye like-ta ha ka ilaawinina kinaalka. Like-ta meel dheer bay gaarsiinaysaa. Share gareeya asxaabta u dira. Ku soo biira haddaydin waxa weeye aydin subscribe ii ahayn subscribe ka dhigta gambaleelka furta. Hadda waa tanaa baradhadii waan xoqay. Waxa weeye insha Allah basasha iyo tamaandhadana waan xoqayaa iyaga laftirkooda ma jarjarayo. Isla birtaa aan karootada ku xoqay ayaan ku xoqayaa. Waxa weeye waan xoqayaa markaan xoqo insha Allah ayaad gadaal ka arki doontaan sida aan waxa weeye isugu dardari doono. Waxaa laga yaabaa maanta xoogaa inuu yara dheer yahay 10 daqiiqo iyo xoogaa weeye adu 11 daqiiqo wax yar dhiman ayuu video-gu qaatay. Marka insha Allah dhamaysta ha ka teginina wada daawada. Bilow ilaa dhammaad daawada waxa weeye video-ga. Hadda basashii waan xoqay iyadiina waa taa waan isku darayaa basashii iyo baradhadii aan xoqday ayaan hadda isku daray. Yaanyadana haddeer aan xoqanayaa iyada laftirkeeda birtaasaan ku xoqanayaa ma jarjarayo. Markaan xoqo waxay noqonaysaa sidii wax la shiiday oo kale ayay noqonaysaa makiinad la geliyay. Waad arki doontaan insha Allah say ku soo baxdo. Insha Allah waxa weeye waa taa hadda markaan xoqay diirkuna gooni buu u harayaa wixii waxa weeye tamaandhada cadkeeda ama hilibkeeda ahna waxa weeye way xoqmaysaa waxay noqonaysaa sidii wax la shiiday oo kale ayay noqonaysaa. Diirkuna wuu harayaa isagu ma raacayo wuu harayaa waa kaa diirkii saas u haray. Waa kaa saas u haray diirkiina. Diirka waan iska tuurayaa uma baahni marka waxa weeye tamaandhada caadiga oo ka isticmaalayaa saasay noqotay. Markaan xoqay waxaad moodaa in la shiiday. Waxa weeye waxaan ku darsanayaa basashii iyo baradhadii aan xoqday ayaan tamaandhadana ku darsan. Kadibna waxaan ku darsan doonaa insha Allah wixii xawaashi ah aan isticmaalayo ayaan ku darsan doonaa hadda. Halkan waxaa iigu jira milix. Wax yar aan badnayn baan milixda kaga darsanayaa qaadada caaradeeda hore ayaan kaga darsanayaa.
intaasaan ku darsanayaa milixda. Kadibna waxaan ku darsanayaa basbaaskaas ayaan isagana xoogaa yar kaga darsanayaa, aan isagana badnayn oo qaadada caaradeeda ah ayaan ku darsan. Kadibna waxaan ku darsanayaa xawaashka loogu talagalay in lagu darsado cagaarka ayaan ku darsanayaa. Waxa weeye xabad furan oon xoogaa ka isticmaalay ayaan ku darsanayaa jabka ka hadhay. Jabkaasaan ku darsanayaa. Intaas ayaan isku walaaqayaa, isdhex gelin doonaa insha Allah. Si fiican ayaan isugu walaaqin. Si fiican baan isugu walaaqanayaa. Kadibna hadda waxaan qooshanayaa ukuntii ayaan garaacanayaa. Si fiican baan ukunta u garaacin. Waxa weeye waan labadii xabbe ukunta ahaa ayaan hadda garaacanayaa. Si fiican baan u garaacin. Kadib markaan garaaco, hadda waa taas waxa weeye waa diyaar. Hadda waa ii diyaar garowday. Kadibna waxaan ku darayaa baradhadii iyo basashii iyo yaanyadii iyo xawaashadii aan isku darsaday ayaan ukuntii ku darayaa. Kadibna waan isku walaaqayaa, waan isdhex gelinayaa. Si fiican baan isugu dhex gelin. Si fiican baan isku walaaqayaa. Haddii xawaashkii uu meelaha ku jirana waan ku yara burburinayaa. Si fiican ayaan isu dhex gelin. Si fiican ayaan isu dhex gelinayaa insha Allah. Kadibna kaabashkii wuu ii bislaaday, dabka waan ka qaatay. Insha Allah isagiina waan soo qaadanayaa. Waa kan kaabashkii wuu ii bislaaday. Biyahan ka soo miirtay waa kan. Markaan biyihii ka soo miiray ayaa waxaan ku darayaa alaabtii kale aan markii isku darsaday ee meesha igu jirtay ukunta ku jirtay basasha, baradhada iyo tabaandhada iyo waan xawaasheeyay. Marka waan ku darayaa, waan isku walaaqayaa. Si fiican baan isugu walaaqin intaas. Kaabashka biyihii waan ka miiray. Waan isku walaaqayaa. Si fiican baan isugu walaaqin. Si fiican baan isu dhex gelinayaa. Markaan si fiican isu dhex geliyo, daawihii ayaan dabka saaranayaa. Saliid baan ku shubanayaa. Markay ii kululaato ayaan ku shubayaa. Saliidaasaan ku shiilanayaa, saliid saytuunta. Markay ii kululaato ayaan ku shubayaa alaabtii aan isku dardarsaday ee kaabashka iyo alaabta ukunta iyo xawaashyada iyo tabaandhada iyo baradhada lahayd. Waa kaas waxa weeye hadda saasaan ku shiilayaa. Waan shiilayaa dabkaan waxa weeye intay bislaanayso. Dabka ayuu inoo hal cabaara saarnaan doonaa. Xoogaa buu qaadanayaa. Hadda waa kan. Waxaan insha Allah waxaan mar dhow ku dari doonaa farmaajadii ayaan dusha kaga daadin doonaa mar dhow. Insha Allah farmaajadii ayaan ku daadin doonaa mar dhow haddii Ilaahay yiraahdo. Waa kan hadeer ayaan ku daadinayaa farmaajadii ama cheese-kii hadba saad u taqaanid ayaan dusha kaga daadin. Kadibna hal cabaara oo kale ayuu dabka saarnaanayaa. Inta xagga hoose ay iga casaanayso dabka ayuu saarnaanayaa. Insha Allah markaan israado xagga hoose wuu ka casaaday ayaan rogi doonaa haddii Ilaahay idanka ka dhigo. Ayaan rogi doonaa haddii Ilaahay idanka ka dhigo. Kan hadda waan rogayaa insha Allah. Daboolkaasaan isticmaalayaa. Daboolkaasaan ku gadiin. Markaan daboolkaa ku gadiyo ayaan dhinaca kale ugu gadiyay. Haddii kale waxaan ka baqayaa inuu iga burburo ayaan diidayaa. Marka dabool baad isticmaalaysaan, daboolkaasaad ku rogaysaan. Marka daboolkaa ku rogtaan ayaa dhinaca kale ugu gadiyeysaan.
wakaa haddana usti kale aan dusha kaga daadiyey, farmaajo kale ama jiis kale aan dusha kaga daadiyey. Waxa weeye hadda waa diyaar, wuu bislaaday, waan ka qaaday. Roodhigaas ayaan ku isticmaalayaa. Roodhiga baroonka iyo taacad baan haystaa, marka taacad baan kaga isticmaali doonaa insha Allah. Taacad baan saari doonaa haddii Ilaahay idin kaga dhigo. Hadda waan ka soo qaaday, waa kan waa ii bislaaday. Saas ayuu soo baxay. Saasuu isu haystaa. Marka haddaad samaysataan dabool isticmaala oo daboolka ku gediya. Markaad daboolka ku gedidaan, dhinaca kalena haddana saas daboolka ugu gediya. Saasuu markaa uu isu haysanayaa, idinkama kala daadanayo. Laakiin haddaad is tirahdid caadi ahaan u rog inuu kala daato ayay suurtagal tahay, uusan isqabsanin. Marka waa kaa haddaad rabtid inuu isu kaa qabsado daboolka isticmaal, hadday aad rabtidna sidiisa kale waxa weeye waad u isticmaali kartaa, dhib ma laha. Haddaad rabtid inuu kala daato dhib ma laha laftirkiisa. Roodhiga waa lagu cuni karaa, laakiin sidan oo kale